madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo safiirka dalka Mareykanka oo u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Donald Yamamoto. kulankan madaxweynuhu la yeeshay xubnaha wafdiga uu hogaaminayo safiirka Mareykanku ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed kaasi oo lagu sheegay in labada dhinac kulanka ay yeesheen diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin dardargelinta qabsoomida doorashooyinka Somaliland iyo sidii ay shirkadaha Mareykanku u maalgashan lahaayeen ugana faa'iideysan lahaayeen horumarka ay ku tallaabsanayso Somaliland. waxaa sidoo kale warmurtiyeedkaas lagu sheegay in labada dhinacba ay kaga wada hadleen kulankooda xaaladda ammaan ee gobolka iyo dimuqraadiyadda Somaliland ka hana qaaday. safiirka ayaa socdaalkiisa waxa ku wehelinayay madaxa xafiiska ganacsiga iyo dhaqaalaha ee safaaradda Mareykanka iyo madaxa xafiiska hay'adda USAID. dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulankaas la yeeshay wafdiga oo hogaaminayay safiirka dalka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya waxa ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka horumarinta maaliyadda Somaliland. waxaana warmurtiyeedka ka soo baxay xarunta madaxtooyada Somaliland ku saxiixnaa afhayeenka madaxweynaha Maxamuud Warsame Jaamac.